الله وبركاته. مقعي وياسمين أفرح أردن وأهي entrepreneur وأهي waxaa ku doortay shaqadeeda inaa businesskayga aan bilaabo baahi ii geysay hooyo aaba keligay bay dhaleen caqabadaha waaweyn oo haweenka oo haysto waa marmar maxaa ku imaanaysa first familka oo aamini waayeen fikradaada iyo waxa adiga aragtid inaa aa keentid ama aa samaysid waxa kalena oo noqon doona waa amniga laakiin waxaas haddaa dhinac iska dhigtid oo is aamintid oo waxaada aa bilaawdid ilaahay taladaada aa saartid kaasaa number 1 wax kasoo ku hagaaga kula talin lahaa gabdhaha oo rabaan inay entrepreneur noqdaan oo businesskooda ay bilaawaan first of all waa inaa is aamintid second maxaa waaye inaa fikrad la imaatid fikradaas aa aamintid google ka gashid wax ka raadisid youtube ka aa gashid sidii dadka u bilaaween maxaa step la qaaday maxaa u baahan tahay qof aa raadisid haddaa aa awoodin qof oo inuu ku investigare aa raadisid markaas aa heshid wax kasta waa magacaygu waa maqsuud maxamed cabdiraxmaan shaqadaydu waa digital marketer waxaa ku doorta maadaama waddanku uu samaynayo horumar aad u ballaaran ganacsiyadana ay isu soo tarayaan shirkado badanna ay ku soo biireen magaalada saas darteed waxay u baahan yihiin adeega suuqgeynta digitalka waxaa ku dhiirigelin lahaa inay ku kalsoonaadaan naftooda si ay u gaaraan horumarka noloshooda caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah in dumarka laga aaminsan yahay howlaha waxyaabaha qaar in aysan qaban karin balse haddeertaan waqtigu uu isbedelay fariintaan u diraayo waxaa waaye inay ku kalsoonaadaan naftooda howlkarnimana muujiyaan magacay waa mule xasan axmed shaqaday waa graphic designer waxaan ka helaa farshaxanka iyo naqshadeynta sidaas ayaan u doortay inaan graphic designer noqdo caqabadaha ugu weyn waxaa ka mid ah dhaqankeena iyo dad qaar oo aaminsan inuu dumarka shaqayaal qaar inaan qaban karin ha tixgelin qof kale wax kaa aaminsan yahay muhiimada waxa waa adiga wax iska aaminsantahay Happy International Women's Day.